soo saarista dahabku waa il dhaqaale oo Somaliland soo kordhaysa. Sulekha mudintii leeg ba dahab ka shaqeynaysa. waxaan ka shaqeynayay sanadka oo buura ah. ku soo dhawaada barnaamijyada xiiso badan oo aan idinka diyaarinay dahabka laga soo saaro dalkeena Somaliland. waxaynu isu diyaarin doonaa safarka qaadanaya saacadaha badan si aan ugu dambeynta u gaarno mid ka mid ah goobaha dahabka laga qodo ee buuraleyda gobolka Sanaag. halkan waa deegaanka Sooro oo qiyaastii 80 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Ceergaabo waana mid ka mid ah meelaha dahabka laga qodo waqtigan. inkastoo dhawaan la ogaaday dahabka ee kaaga buuraha gobolka Sanaag ayaa waxaynu booqan doonaa mid ka mid ah goobaha waqtigan dahabka laga qodo ee deegaanka Sooro waxaana waraysi kooban la yeeshay Sulekha Cali Xuseen oo ka shaqeysa soo saarista iyo ka ganacsiga dahabka. Sulekha mudintii leeg ba dahab ka shaqeynaysa. waxaan ka shaqeynayay sanadka oo buura ah sanadkii dhamaaday. goobtan aynu joognaa waa goob aad dahab ka qodayso oo maalla ah maallada markii ugu horeysay aad bay u sareysay bal maxaad waxyaalo kugu leeyahay badnaad goobta ka aragtay. waxaan ka arkay goobta ugu badneed goobta aad bay u badnayd goob aad u weyn bay ahayd dheeraanteeduna dheeraan aad u weyn ayay ahayd dabadeedna waxaan ku arkay calaamado aan lahayn maalooyinka kale sidaa darteed ayaan ku bilaabay maallada kuna shaqeeyay shaqadaana ku wada. okay waxaan imika arkayaa dhagxaan kala jaajaada ciid kala jaajaada waxyaalo tuubooyin oo kala jaajaada oo waxaan inta badan aan dhulka lagu arkin waxaas maxay waxa weeye maalada gudaheeda aan ugu tagnay markii aan qodnay ee dusha ka dhameynay wixii ay dusha ka saarnaa ka dhameynay waxaan u tagnay qodaal badan waxaan ugu tagnay ciido kala gaara oo kuba aynu hadeer aragna ah iyo kuba aanu laabnay oo dusha saarnaya ayaan ugu tagnay dhagxaan kala jaajaada welina waanu wadnaa ilaa iyo hadeer aynu taaganahay aan aragtaa. meeshan ciideedu waa cadaan halkan waxaad moodaa ciid loodharka waarintii lagu soo raray meesha laga soo buuxiyay oo ciidad kala jaajaada ciidahan xagadka laga keenay kula tahay yaase keenay ciidahan waxa keenay wixii markii hore sameeyay oo ma aha ciida meesha aan ugu tagnay waa ciid la keenay oo qeyral xada oo ka badan in dabaq la dhiso ka badan ciida gashay ciidan godkan marka dadkii dhisay ee waxaan habeeyay ayaa ku tala galay oo keenay oo ku dhisay. ugu dambeyntii halka waxaad ka qodaysaa wadahab waxa jira marka laga yimaado kulli waxaan wadad raadad dad hore ka tagay meesha masleedahay aasaar kale oo waxyaalo kale oo dadkii hore meeshan dhigeen ama ku keediyeen baa laga keedi karaa. insha Allah bidmilaahi karin waanu ugu soconaa inaanu ku gaadhno markii hore waxaan u qodnay inaanu aasaar gaadhno walina waanu wadnaa waanu ku rajo weynahay inaanu ka helo aasaar ugu wanaagsan wixii aanu ka helo insha Allah bidmilaahi karin ee aasaarana waanu soo bandhigi doonaa wixii aanu gabagabada ka helo markaanu gabagabayno. inkastoo badi dadka ka shaqeeya dahabka aan yeelin aqoontii xirfadii iyo agabkii ay u baahnayeen ayaa haddana waxay soo saaraan dahab xaddigiisu yar yahay oo ay siyaabo kala duwan bulshada uga macaashto waxaana lagama maarmaan ah kor u qaadista aqoonta iyo xirfadda dadka ka shaqeeya dahabka iyo tayeynta agabka ay ku shaqeynayaan waxay u sahli doontaa soo saarista dahab si xawli u kobciya dhaqaalaha iyo horumarka dalkeena Jamhuuriyadda Somaliland.